حسن أبشر فارح واسمه رئيس الوزراء كسو نقضي الصومالية أيها لها ونحريستي رئيس الوزراء لبادي جيريودي سنة كان 12 bishii July ayuu ku dhintay magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxa uu jiray daa'ada 77 sano Xasan Abshir filka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid ayaa marxuum Xasan Abshir Faarax alle uga bariyay inuu jannadiisa ku casuumo wuxuuna dawladda Turkiga uga mahad celiyay sida ay u maamustay madaarka Ankara waxaanu ka sagootinay meydkii marxuum Xasan Abshir Faarax رئيس وزراء هوري قرنك الصوماليات دولة تركيا وحنا نقول سوق يبقى وزارة دارمة دبدة قارهان وسير كحيان كارمة دبدة سدات أونل وحكلوا نقول سوق يبقى قيبة بروتوكولكا وحكلوا نقول سوق يبقى مدح مداركا أنقرة نك مدح ذكاء وحكلوا نقول سوق يبقى سراكيل بروتوكولكا مدحتوية ذا كسعتها سعاد قروح بدن أي أسس جوتدي وأنا تعسيدنا وأنا سو جارسيين هذا قرال تهاي هذا عط تهايبا وأنا لسو جارسيين أنا قلنا وأنا مهد علينا دولة تركيا أهل كمرحوم كنا ومهد عليين عاوة هل كان ديارته قبل حدونتا أرورتا يكون بيجنتها مقدشو دولة الصومالية ودن بسوقسي شعب الصوماليات كدمنا وحلوة قاعد دونا جروه ولقوا عسدونه ظهور نمضبا reer Garowe dhanna waa sugayaan iyo madaxdii Puntland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu ku sugayaa Garowe iyo madaxdii dawlad goboleedyada oo dhuuso mareeb ka yimi aaska iyo maamuuska marxuum Xasan Abshir Faarax ra'iisul wasaarihii hore ee qaranka shacab iyo dawladda Turkiga ee wadankeeda ku dhintay iyo dawladda Soomaaliya aad baa loogu istaagay waana la maamuusay waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariisto sidaas ummadda haday tahay Turkiya haday tahay Soomaaliba ay u maamuuseen waxay marxaati uga kaceen inuu yahay nin wanaagsan wanaagiisii baa loo maamuusayaa Xasan Abshir ayaa dawladihii kala duwanaa ee Soomaaliya ka soo qabtay xilal kala duwan wuxuu ra'iisul wasaare ka soo noqday dawladii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan uu hogaaminayay waxaana loo magacaabay xilkaasi kadib markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii isaga ka horeeyay ee Dr. Cali Khaliif Galayd wuxuuna xilkaasi hayay muddo 3 sano ah waxaa sidoo kale Xasan Abshir Faarax soo noqday duqii magaalada Muqdisho xilligii dawladii hore ee Maxamed Siyaad Barre sanadihii u dambeeyay waxa uu ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ka hor intii uusan siyaasadda ka bixin Xasan Abshir Faarax waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1963 ayaa ahayd xilligii uu ku biiray ciidanka xoogga 1973 waxay ahayd xilligii loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho isagoona ahaa maayirkii ugu daadayara 1998 Xasan Abshir Faarax waxa uu kamid ahaa asaasayaashii dawladda Puntland 2001 dawladii Carte ee Djibouti lagu soo dhisay oo madaxweyne ka ahaa Cabdiqaasim ayaa ra'iisul wasaare looga magacaabay 2006 ilaa 2007 dawladii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ayaa uu ka ahaa Xasan Abshir Faarax wasiirka hawlaha guud ku dhawaad muddo nus qarni ah ayuu xilal kala duwan uu soo hayay Xasan Abshir Faarax waxyaalaha si gaar ahaaneed loogu xasuusto iyo balsi kooban taariikhdiisii waxaan weydiiyay Cabdi Faarax Siciid Juxa oo isagu soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya sidoo kalena wasiir ka soo noqday maamulka Puntland Allah u naxariistay ra'iisul wasaare Xasan Abshir Faarax wuxuu ahaa nin muddo dheer xilal badan soo noqday muddo dheerna ka dhex muuqday siyaasadda Soomaalida wuxuu ahaa nin awlkara dad isku wad leh saaxiib badan dadka ku dhex leh wuxuu ka soo jeeday sideedaba qoys aad magac gobolka Nugaal xaaji Abshir Abiis wuxuu ahaa xildhibaanadii ugu horeeyay ee dawladii rayidka ahayd ee lixdamaadkii uu xubin ka ahaa markii dambena wuxuu ahaa sarkaal sare oo muddo dheer wakaaladda ay shaqaynayay Xasan Abshir Faarax wuxuu ahaa sarkaal ciidamada uu ahaa kolonel buu ku galay dagaalkii 77 ee lala galay ee dalka Itoobiya wuxuu soo noqday gudoomiyaha gobolka Bakool wuxuu soo noqday gudoomiyaha gobolka Jowhar muddo dheer wuxuu ahaa duqa magaalada Muqdisho wuxuu soo noqday safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Japan iyo Jarmalka galbeed dabayaaqadii 80kii bilowgii 90kii markii dambe oo dawladii ciidamadu ay burburtayna 90kii markaas wuxuu gadaal u soo laabtay gobolada waqooyi bari oo uu ka soo jeeday wuxuu ka mid ahaa odayaashii halka nabadda iyo horumarka iyo waxa ka aslaaxinayay wuxuu soo ka ahaa asaasiyaashii dawladda Puntland ayuu wuxuu ahaa xubin haldoor ah
wasiirka ugu horeeyay arrimaha gudaha ee Puntland ayuu noqday dowladii Cabdullaahi Yuusuf markii dambe oo 2016 waxa uu dhisay meesha Cartana wuxuu ka mid ahaa shir gudoonkii Carta wuxuu halkaa ka soo noqday dowladii ugu horeysay Cabdiqaasim ee TNG-da wasiir markii dambe ra'iisul wasaare ayuu ka soo noqday wuxuu soo noqday xildhibaan muddo dheer buu soo ahaa xildhibaan oo dowladii TNG-da Cabdiqaasim iyo TFG-dii koowaad ee Bagaati iyo TFG-dii labaad ee Jabuuti iyo Xasan Sheekh Maxamuud ee Muqdisho lagu doortay intaba xildhibaan ayuu ka soo ahaa marka waxaa nin muddo dheer siyaasadda ku soo jiray dad isku wad leh saaxiibo badan leh Soomaalinimadu ay ku weyn tahay in wax la dhiso iyo qarannimo runtii aad ugu suntanaa magac dheer lahaa xasan abshir faarax waxaa lagu aasay magaalada Garowe 16 bishii July